bilowga hore ee filimka waxaan aragnaa lamaan lagu kala magacaabo Charlie iyo Rijal kuwaasoo u baxsanaya magaalada Las Vegas si ay halkaas isku soo guursadaan iyagoona ka qarinayo qoyskooda. Lamaanuhu waxay dareemaan nin boolis ah oo agtooda ku dheelaya ciyaar lagu magacaabo wadadii cadaabta Highway to Hell inuu iyaga daba socdo, isla markiina goobta ay iskaga soo cararaan. ninkiina waxa uu bilaabaa inuu soo daba kaco. Rijalna markuu dareemo in la daba socdo wadada ayuu bedeshaa. sidii u socdeenna ugu dambeyn waxay yimaadeen meel gas station qadiimi ah. odaygii jooga oo lagu magacaabo Mr. Sam markay shidaal ka qaataan ayuu bilaabaa inuu tala siiyo isagoona dhahaya iska jira geedaha lagu magacaabo Joshua, sidoo kalena wax walba oo dhaco gaariga wadada haystaajinina. ayagoo fahmin taladiisa ayayna meesha iskaga soo tagaan. intay wadada ku jireen Charlie waa ay hurdaa. Rijalna wuxuu wadada ku arkay geedkii Joshua ahaa, balse waa iska indha tiraa nasiib xumo Rijal isagana hurda ayaa la tagto. ugu dambeyn waxa ay soo baraarugaan gaarigoodii oo nin boolis ah haystaajiyay, balse wuxuu ahaa boolis aad u argagax badan. balse ninkii booliska ahaa oo aadan hada soo qaadin wuxuu bilaabaa daaqada inuu soo jebiyo, wuxuuna meesha ka wataa gabadhii Rijal ahayd. Charlie markuu qoftiisa ka dhigo isdhoo hal feer ayaa ka badnaaday isagoona suuxo. cabaar kadib wuxuu soo baraarugaa isagoo eegiisu kicinayo. meesha ayuuna kasoo cararaa wuxuuna soo aadaa ninkii odayga ahaa, halkaasina wuxuu ka helaa silis ay oga tagtay Rijal. markuu u yimaado odaygii Sam ahaa ee gas station ka joogay isagoona weydiinaya sababta uu wadadaas uga digayay iyo waxa uu ahaa ninka booliska ah. oday Sam wuxuu ku jawaabaa in waxa qoftiisa qaatay uusan ahayn boolis caadi ah balse uu ahaa Hellcop kaasoo ka yimaaday dunida shayaatiinta. wuxuuna siiyaa qorigiisa oo duug ah, sidoo kalena wuxuu siiyaa gaari oo si gaar ah u diyaariyay isagoona u raaciyo saacad taasoo ka dhigan inuu haysto keliya 24 saac si uu qoftiisa usoo badbaadsado. Charlie waa uu soo baxaa isagoo isla wadadii soo qaadaya, balse markan wuxuu arkaa boolis hubkiisa ayuuna diyaarsadaa isagoona toogan rabo. wuxuu ogaadaa inuu yahay boolis caadi ah. goobta ayuuna iskaga soo cararaa sidii uu ordayo. ugu dambeyn wada sixir ah ayaa isfurta, halkaas ayuuna soo galaa. ugu dambeynna waxay keentaa meel saxra ah. dhinaca kale askarigii Rijal soo afduubtay ayaa gabadha wuxuu keenaa maqaaxi, halkaasina wuxuu ka dalbadaa shaah aad u kulul, balse waxaa gadaashiisa ka yimaada midkoo intuu ninka ku mashquulsanaan. Rijal waxay bilowdaa shaahii kululaa inay ku daadayso jeebadii lagu xiray. jeebaduna ma aysan ahayn mid caadi ah oo waxay ahayd gacmo caadi ah. meesha ayayna kasoo carartaa. ugu dambeynna waxay dhexda u gashaa koox mootoley gaangis ah. hogaamiyahooda ayaa gacanta ku dhigo, balse askarigii ayaa yimaada saacado kadibna meesha waxaa soo gaaray Charlie, balse waa uu soo daahay. waa xilli qoftiisii goobta laga watay. Charlie wuxuu gacanta u galaa gaangiskii. markay weydiiyaan meesha wuxuu ka qabanayo wuxuu ugu jawaabaa inuu u yimaado si uu saaxiibadiisa u badbaadsado. Royce oo ahaa hogaamiyaha gaangiskana isagoo la yaaban dhiirinaantiisa ayaa uu sharad la galaa, kaasoo ahaa Charlie haddii uu ku dhinto gacanta askariga shaydaanka ah inuu ruuxiisa weligeed u adeegi doonto gaangiska. isagana maadaama doorasho kale uusan haysan wuxuu bilaabaa inuu heshiiskaasi galo. goobtan waa iskaga soo tagaa, laakiin intuusan soo bixin ka hor meesha wuxuu ku arkaa Clara wuxuuna galaa xusuus. markuu la joogo odaygii Sam ahaa ee gaariga iyo qoriga soo siiyey ayaa uga sheekeeyay Clara inay ahayd gacalsidiisii, balse ayagoo mar gaari wato inuu Sam wadada ku dhex hurtay, taasoo sababtay askarigii inuu Clara ka afduubto. intaas kadib Charlie wuxuu soo dabaraacaa askarigii wuxuuna isku dayaa inuu xoog ku istaajiyo gaarigiisa, balse askarigii shaydaanka ah oo u muuqday mid aad u xirfad badan ayaa Charlie wadada ka saara isagoona xabado ku rido. gaariga Charlie meel cidlaha ayuu kusoo dhacaa weliba isagoo burbursan. xoogaa kadibna wuxuu arkaa nin gaarigiisa jiidanayo isagana qori ayuu ku qabtaa. ninka oo lagu magacaabo Basil sidoo kalena uu la socdo cunug yar oo lagu magacaabo Adam ayaa ku andacooday inuu u maleynayo gaari soo lumay, sidaas darteedna uu rabay inuu soo samaysto, balse wuxuu abaalmarin oga dhigaa in uu si free ah ugu samayn doono gaarigiisa maadaama ninkan uu ahaa makaanigiiste. waa uu usoo sameeyaa waxaana si qarsoodi ah kusoo raaca Adam oo soo dhuuntay. Adam wuxuu Charlie u sheegaa isagana inuu ku xiriiran yahay dunida shayaadiinta, wuxuuna intaas ku daraa inuu aabihiisa iyo asagaba soo afduubtay askarigii, halkaasna uu ku baxay aabihiisa oo nafta lagu dhaafiyey. ugu dambeynna Charlie wuxuu yimaadaa baarkii loo soo tilmaamay. baarkaana waxaa ku jirtay Charlie. markuu soo kale wuxuu arkaa haween badan oo shabaqyo ku xiran, sidoo kale haweenkaas waxaa ka mid ahayd Rijal, balse nasiib darro waxaa soo muuqday askarigii Hellcop ahaa. Charlie wuxuu bilaabaa inuu xabadeeyo, balse askarigii xabadahaasi waxba kama tarto. halkaas ayaana Charlie bag iyo xabad loogu tumaa ilaa ugu dambeyn hal xabad lagu dhufto. nasiib wanaag Adam ayaa wuxuu usoo yeeraa Basil si uu u badbaadiyo saaxiibkiisa. Basilna wuxuu sharad ugu dhigaa si uu u badbaadiyo inuusan mar dambe kasoo tegi doonin. Adamna maadaama doorasho kale uusan haysan waa uu aqbalaa inuusan mar dambe kasoo dhuuman doonin. Basil ayaa sixir adeegsado isagoona hal taabash ku daaweeyay Charlie. markuu caafimaadana Basil wuxuu u sheegaa inuu Adam raaci doonin. Charliena waa uu aqbalaa maadaama heshiiska sidaas ay ka mid ahayd. ninkii lagu magacaabay Basil ayaa Charlie usoo tilmaamay wado lagu magacaabo The Road to Nowhere, taasoo ka dhigan inay tahay wado aanan meelna geyn doonin. Charlie wadadii ayuu soo qaadaa wuxuuna arkaa Royce iyo tiimkiisa oo ceersanayay isagoo u maleynaya inay weerar ka yihiin ayuu ka cararaa. ugu dambeynna waxa uu soo gaaraa god
kaasoo ah goobta ay keenaysa wadada loo soo tilmaamay. waxaana halkaas kasoo dabagasha Clara oo ahayd qoftii Sam, taasoo uga digto godka iyadoona u sheegtay in waqtiga laga luminayo godkaana waxba aysan ku jirin. isagana wuxuu u sheegaa inuu riski qaadan doono godkii ayuuna soo galaa. ugu dambeyn halkaas wuxuu ku arkaa qol qurux badan ay ku xirxiran tahay qoftiisii, balse nasiib daro waxaa soo muuqda askarigii. dagaal kadib hal xabad ayuu ku dhuftaa askarigiina halkaas waa uu ka tirtirmaa. intaas kadib Charlie wuxuu la yaabaa dhaqanka Rachel, taasoo si kale u dhaqmaysay jawi romantic ah ayana meesha ka bilowdaa. Charlie oo aanan fahmin dabeecadeedan qariibka ah ayaa halmar miyaarada fiiriyo, wuxuuna ogaadaa noolahan inaysan Rachel ahayn, waana shayaadiinta nuuca ugu foosha xun. dagaal ayaan labadooda ka dhex qarxo kaasoo kusoo dhammaaday Charlie si dhib leh inuu nafta ku dhaafiyo shaydaamadii. wuxuuna soo aadaa dhinaca wadada aada City to Hell magaalada cadaabta, waana halka ay Charlie joogto. nasiib xumo Rachel waxaa wadada u gala gawaari badan, isagana maadaama uu wadiista ku wanaagsanaa wuxuu bilaabaa gawaaridii dhammaantood inuu kasoo dhex baxo ilaa uu cagta soo dhigo City to Hell oo ah magaalo si casri ah u dhisneed, waana halka uu joogo shaydaanka weyn. nasiib daro waxaa wadada hore u galo ay 3 madax leh, isagoona isku dayo inuu meesha ka celiyo, waxaana halkaas ka mashquulinaya eegiisii yaraa. intaas kadib waxaa u digo nin ay ku sheegeen inuu nafaha isku bedelo marka ay labada adduun u kala gudbayaan. caruurta muuqaalkan daawanayso waxaan waxba kama jiraan, ilaahay uunbaa nafaha maamulo, waxaana waa filansas ogaada. Charlie markuu ninkii kasoo gudbo waxaa soo bursata xeen ilaale ah, isagana waa uu kasoo baxsadaa ilaa ugu dambeyn uu soo galo qolka ay Rachel ku xirnayd si uu iska hubiyo midii dhabta ah inay tahana miyaarada ayuu ku aadiyaa, wuxuuna xaqiiqsadaa inay iyada tahay. halkaas ayayna laabta isku geliyaan, balse waxaa soo muuqda shaydaanka weyn kaasoo ah qofka loo soo afduubay Rachel si ay u noqoto xaaskiisa. shaydaankii wuxuu Rachel u sheegaa inuu siin doono hanti iyo nolol raaxa leh, balse waa ay ka diidaa, waxayna cadaysaa in ka badan raaxada iyo hantida inay jeceshahay Charlie. labadoodana meeshaas waa iskaga soo tagaan, balse shaydaankii ayaa miyaarada hor istaago, waxaana ogaanaa inuu yahay isla Basil ninkii magaaniistaha ahaa ee Charlie caawinayay. lamaanihii waxay soo qaataan gaarigii booliska ahaa, ninkii booliska ahaa oo kusoo dhowna waxay bilaawdaan inay loo fiilo istaabsiiyaan kaasoo gaariga wadada dhan kasoo bixiso. Rachelna maadaama wadooyinka ay kala taqaan waa ay u tilmaamaysaa, ugu dambeynna waa ay kasoo baxaan magaalada. Charlie markii ugu horeysay wuxuu soo aadaa dukaankii makaaniga si uu usoo wato Adam, balse goobtii waa isbedeshay, waxaana laga dhigay dhisme qasri aad u qurux badan. waxaa xoogaa kadib soo baxo Basil oo isbedelay. Basil hadda waa shaydaanka dhabta ah, wuxuuna u sheegaa Charlie inuusan Adam sii doonin maadaama Adam iyo Rose ay yihiin carruur soo afduubta si uu u karsado, haddana uu rabo inuu Rachel ka dhalo cunug kaasoo xukumi doono dunida dadka caadiga ah ay ku nool yihiin. Charlie wuxuu codsadaa challenge si ay meeshan uga xoroobaan, challenge-gaasoo ah inuu la tartamo Hell Cop si uu meesha uga baxsado. Basil oo qoslayo sidoo kalena og arrinkaas inaysan macquul ahayn waa uu aqbalaa isagoo dhalisanaya. challenge-guna waa haddii askariga shaydaanka ah ay ku guuleystaan inay ka baxsadaan in la iska fasixi doono ee adduunkoodii dib ugu laaban doonaan lamaanaha iyo wiilkeer ee lagu magacaabo Adam. taas bedelkeed haddii lagu guuleystana weligood waxay addoomo u ahaan doonaan Basil. intaas kadib waxaa bilaabmay challenge-ga. Rose ayaana soo muuqday isagoo careysan ayuuna ka codsaday aabihiisa inuu ku biiro challenge-ga. Basilna waa uu diidaa, balse Rose ayaa xoog u gala challenge-ga. waxaa bilaabmay challenge. Clarana waxay Charlie ku dhahdaa iga gaarsiiyay ninkii Sam ahaa inaan fiicanaha sidoo kalena weli aan jeclahay oo aanan iloobin. markuu game ka bilowdo Royce wuxuu u sheegaa Charlie inuu isaga guusha leeyahay una qalmo, wuxuuna la soo baxaa xubkiisa. nasiib wanaag Clara ayaa indhaha mara ka saarto, taasoo sababtay labadooda shil halis ah inay galaan control-kan uu ka lumo. halkaas ayayna kusoo afjarmaan. hadda Hell Cop iyo Charlie oo keliya ayaa isku soo haray, askariguna xabado tirabeel ah ayuu kusoo ridaa. Charlie Rachel ayuu u sheegaa inay soo qabato hubka, hal xabad oo keliya ayaa u hartay. Adam wuxuu u sheegaa askariga hal meel uu ka dhintay meeshaasina ay tahay uurkiyaalaha oo wato, haddii laga togtana uu soo afjarmi doono. intii Rachel ay raadinaysa xabadii oo hoos ku dhacda waxay aragtaa badhan qarsoodi ah, markay taabatana gaarigoodii ayaa speed aanan dunida hore loogu arag la soo biriqsiyo ayayna dunidii caadiga ahayd ku yimaadaan. weli waxaa meesha joogay askarigii caadiga ahaa, isagoona aamin lah wuxuu indhihiisa ku arkay ayuu xiraa Charlie, balse waxaa soo muuqda Hell Cop oo careysan. askarigiina xabado ayuu kusoo ridaa, balse halkaasi ayaa lagu kala baxaa. Hell Copna Charlie ayuu dhinaciisa yimaadaa isagoona ceego ku dhegayo. Charlie oo isdifaacaya ayaa bilaaba hal orkiyaal inuu ka jabiyo, balse taasi waxba kama dhibto. hubkiisa ayuu nala soo baxaa isagoona rabo inuu Charlie afka ooga dhufto. nasiib wanaag Rachel ayaa hub soo qaadatay iyadoona ishii kale ka toogato, halkaasi ayuuna ku burburaa askarigii shaydaanka ahaa. dhammaadka filimka waxaana loo sheegaa in Charlie iyo Rachel ay midoobeen, sidoo kalena ay dhigtaan aroos qoyskeedu ay raali ka yihiin, halka Adamna ay u raadiyeen ciddiisii. Samna waxa uu ku noolaal nolol aad u degan maadaama uu hadda nafis dareemayo qoftiisiina nabad ay ku nooshahay. ila wadaag haddaba fikradaada dhiiba qaybta commentiga, like iyo subscribe-na haddii aysan dhib kuga ahayn waad noo saari kartaa, haddii aad saartana qalbiga ayaan kaa leeyahay in badan oo badan. mahadsanid, nabadgelyo, noolaada, wassalaamu calaykum waraxmatullahi.